منكم إلهي دونه كدقا ويجعل من يشاء عقيما وترتيبته إلهي سبحانه جل وعلا إلهي دجيي عن عد خلاف فكر تاجرين وإنه قفك ترتمى يا أوقادا إنه ملكه حق الله كي ماده اختياركنا حق الله كي ماده سبحانه جل وعلا والله دورنا يا لكن إلهي ذا دورتي وتي إلهي ذا الرئيسي إنه لو شرعيين إنه وإنه نسده فهمنا dadka Soomaaliyeed kelmadeedu waxay daaran tahay inay toobad keenaan inay istighfaarta badiyaan in Ilaahay soo laabtaan subhanahu jalla wa ala hadii dadku wanaagsanaadaan madax wanaagsan baa la helayaa madax wanaagsan ayaa la helayaa wanaaga ummaday ka turjumaysa haduu mujtamacu xumaadana la heli maayo madax wanaagsan taa hoosta ka xariiqa dib isugu noqda marka doorashadu socoto laba ragcadood oo sunnah tukada Ilaahay xaqiisa u jeesta ducada badiya Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax weydiista عدة وحينها هيسا إلهي وإياه سبحانه جل وعلا عدة لو وحينها هيسا ما جرته خير بيكون ما نيسا وحاولاه يهون بارلمان كان مسؤولية بينات الله مسؤولية داس كوي قرت إلهي هاي نجيه له سبحانه جل وعلا كوي مسؤولية ده قته الله هاي نجيه له عدنا لوحل إننا كل كيس بيا كما هكرده أو دائمك دردارا يوانا وقت جل لما تشوفه إن بدن بالصوت دردار ماي إن بدن بالإصلاح الله هذا واحد شوفتاون وقلت يا جبدي ثلاثة توفيق الله ينوافقه حق الله ينقصه تذكير هذا لو واحد ورنجر الملك الدعين أيام إله ما الدور النقانة نوضو إله ما الدور النقانة إله نوضور بورنجره إلهي هاي نوضوره ملح وناكسن وإنه جميع الله ينوها قاتشي سبحان ربك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم قدوم كقولها الشعبي قدومي على كسرق يعلمان كحجينا ذا البانة الشرفت له مرشحين تا لما مرت شرفك وروى سلامتين ما أنت ومالين تاريخي وحامالتي مركي هرب ومالنتي 15 ماي صومالي تاريخ يقول له هيدي أو الحصوات قيمة بدن haddana maanta ilaahay waxaan waafaqay inay doorashada ku soo aado ilaahay khayr baan ka rajaynaynaa marka intaas kadib xilbaanada sharafta leh waxaan idin ka codsanaynaa socodka hal yareeyo buuqa hal yareeyo waxaan idin ka codsanayaa marka koowaad inaad loo ansaxisaan ajintaha si aan hawshan u galban ajintaha loo ansiyaa aad u maasantiin dijiya quorum keeni waa xogeyntu waxay soo qortay 297 waxaan ka rabnay quorumka inuu noqdo 330 hal xildhibaan markii hore waa naga maqnaa oo golaha shacabka ka tirsan marka waxaan sugaynay 329 aan sugaynay marka waxaan rabnay in maaragtay ay tirada meesha buuxiso xildhibaanada badana fasax ma galin xildhibaanka aan la dhaalin xogeynta waxaan ka codsanayaa in loo yeero maaragtay xildhibaanada meesha ku dhex jiro oo xildhibaanada meesha ku dhex jiro aan saxiixin inay saxiixaan baan ka codsanaynaa xildhibaanada aan saxiixin inay saxiixaan maaragtay hogaanta ha u yeerto ha saxiixeen dad iska fadhiistiya jiraa la yidhi aan saxiixin marka waxaan bilaabi doonaa aan gudagalaynaa insha allah hawsheena muhiimka ahayd allaha noo fududeeyo asalaamu calaykum aad iyo aad u mahadsan yahay guddoomiye sheekh aadan madoobe waxaan bilaabanaynaa barnaamijkeennii الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قدوميها قولها الشعب قال هاو وهوغانتا يتوسيسي 276 واي أقل كسرس لكن أنا مئلوبين 330 واي مركان لي هاي مئلوبين وكجرا وغو حساب تقود أن قدري وهو إليه هاي حساب دافتي مدافين اللبان نقبق باجرا ساسا لواتين سغال كلنا هاي هاتي لما يستروا 330 ما رسول قلنا لابد أقل مركان اسكو دارو هوغا يا مئلوبين وما سنتا بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قولها شعبك قدوميها أقل كسره قدومي كحجان نضل وضع أقل مدحوينها دولة دولات كجبلان قدوميها قبل كبنادر قدق دور شوينك مرشحين تا وترتمى ساحلك مدحوينها جمهورية الفدرال كصوماليا اللي بان نضل وضع أقل مرتدى كلا الدول يسفير رضا مثلا باشا عالمك يا دمان dadweynaha Soomaaliyeed ee nagala socda
telefishinada iyo baraha bulshada. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaa sida uu guddoomiyuhu sheegay ajanduhu yahay doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. sida horey loola socday waxaa soo gudbiyey oo soo qadimay inay booska u taagan yihiin 39 murashax oo soo gudbiyey magacyadoodii oo shuruudihii soo buuxiyey. marka haddii ay jiraan murashaxiin ka tanasulay 39ka ka mid ah oo ka tanasulay tartankii, waxaa laga codsanayaa inay miiska tagaan guddoonka ku wargeliyaan si rasmi ah inay ka baxeen si looga reebo tartanka. musharaxiinta ka tanasulay ee qorshaystay inay ka tanasulaan musharaxiinta ka tanasulay tartanka waa inay u tagaan guddiga si rasmi ah. waxaan akhrinayaa magacyada guud ahaan 39ka murashax. marka musharaxii aan markaa ka tanasulay waa inuu guddiga uu u tagaa uu ka tanasulaa. horey sidaa ula socotaan waxaa loo soo qoray guddigu u soo qoreen hab alifbetical ama alfabeetada sida ayaa loo soo qoray. marka magacyada ayaan akhrinayaa. nambarka 1 cabdi aadan hoosow, 2 cabdi cali xasan, 3 maxamed cabdi maxamed kuusow, 4 cabdikariim xuseen guuleed, 5 cabdinaasir cabdulle maxamed, 6 cabdinuur sheekh maxamed maxamuud, 7 cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, 8 cabdiraxmaan mucalin axmed, 9 cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi, 10 cabdulqaadir xuseen maxamed jahweyn, 11 cabdulqaadir cusuble cali, 12 cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi, 13 cabdulaahi cali axmed cadow cali gees, 14 cabdulaahi cali xasan, 15 abuukar aadan cabdulle, 16 axmed ducaale geelle xaaf, 17 bashiir xaaji cabdi, 18 daahir maxamuud geelle, 19 fawsiya yuusuf xaaji aadam, 20 xasan cali khayre, 21 xasan sheekh maxamuud, 22 xuseen cabdi nuunow, 23 jamaal axmed ibraahim tifow, 24 jibriil ibraahim cabdulle, 25 ahi farmaajo, 28 maxamed amiin faarax, 29 maxamed daahir aweys, 30 mukhtaar maxamed siyaad, 31 nucmaan sheekh cumar cusmaan, 32 cumar cabdulqaadir axmed fiqi, 33 cusmaan xasan weheliye xasan bariise, 34 ridwaan xirsi maxamed, 35 saciid ciise maxamuud, 36 saciid cabdulaahi maxamed deni, 37 shariif sheekh axmed sheekh maxamuud, 38 faagud axmed maxamed, 39 zakariye maxamuud xaaji cabdi. marka ciddii ka tanasusay si rasmi ayay ugu tegaysaa guddiga. waxaa jiri doona habraac oo aad dhammaantiinba wada garanaysaan oo aan jeclaan lahaa inaan idin xusuusiyo oo keliya. habraacaas oo ah habraaca codaynta doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. hannaanka codaynta xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxay u codaynayaan hannaan qarsoodi ah si waafaqsan qodobka 89aad qodobkiisa 5aad carabka ee dastuurka kumeelgaarka ah. sida loo codaynayo nidaamka codayntu waxaa maamulaya guddiga doorashooyinka oo kaashanaya xogeyaasha guud ee labada gole. marka xubinta codaynaysa loo yeero ayna hesho warqadda codaynta waa 1 in xubintu ay tagto goobta codaynta, in xubinta ay dhiibataa codkeeda si waafaqsan tilmaamaha calaamadaynta warqadda. qaar baa isku dhow, tusaale ahaan waxaa ku jira 3 cabdi, 3 cabdiraxmaan, 3 cabdulqaadir, 3 maxamed, 2 xasan, 2 cabdulaahi, waxaasoo dhanaa ku jira. marka qof walba waa inuu hubsadaa meesha uu calaamadaynayo. qofka murashaxa uu doonayo inuu raaco falaarteedii oo uu saxo oo hubsado. waxaa kaloo ku yaalla dhinaceeda sawirka murashaxa. marka musharaxii laga reebo waa laga reebayaa, laakiin musharaxiinta tartamaya sawirkooda ayaa ku yaalla. marka sawirkii, nambarkii oo qofku lahaa iyo waxaad arkaysaa iyo magaciisii oo saddexan. marka xubinta ay codayso waa inay dib ugu laabato. xubin kasta oo codaynaysa waxaa warqadda ay ku codaynayso siinaya ay ku ridaysaa sanduuq marka hore la hubiyey inuu faaruq yahay, ka jeexan gudihiisana uu muuqdo sida uu qabo qodobka 20aad ee xeeroosaadka golaha aqalka sare, xeeroosaadka golaha shacabka. arrinkan kuma uusan hadlin.
calaamadaynta warqadaha codaynta warqadda codaynta waxaa ku qoran dhammaan magacyada musharaxiinta loo codaynayo xildhibaanka ama senatarku waa inuu saaraa calaamadda sax wax aan calaamadda sax ahayn lama ogola calaamadda istilaab maaha calaamaddu waa sax musharaxa aad u codaynayso calaamaddiisa meesha uu ku jiro bokiska ama sanduuqa qofkaa ku aadan ayaad saxaysaa oo aad tig siinaysaa warqadda codaynta waxaa ku qoran dhammaan magacyada musharaxiinta calaamadaynta soo socota waxay burinaysaa warqadda codaynta haddii sidan hadda soo socota aad samayso codkaagii waa khasaaraya calaamadda saxda ayaa kor lagu soo sheegay haddii aanay ku oolin haddii warqad aan way burtay sidoo kale calaamadda saxda ah haddii ay ku hortaallo wax ka badan hal musharax magaciisa ama aysan codayn musharaxa calaamaddu ay ku hortaallo ayadana sidoo kale waa buraya tusaale ahaan haddii qofka codaynayo laba musharax uu tig siiyo oo kala duwan lama kala saari karo cid uu codeeyey sidaa darteed warqaddiisaas ama codayntiisaas waa ay khasaartay waxa uu codaynayaa oo keliya hal qof calaamad kasta oo aan ahayn calaamadda codaynta ee la asteeyey way buraysaa haddii calaamad aan sax ahayn ay ku taallo warqadda oo qof wax ku calaameeyey ama calaamad gaara lagu arkana sidoo kale codkaas wuxuu noqonayaa mid khasaaray codayaasha guud waa inay haystaan goobta codaynta diiwaanka saxda ah ee magacyada xubnaha labada gole ee codayn kara xubin kasta waa inay saxiixdaa diiwaanka codbixinta kadibna la siiyo warqadda codaynta wareegga koowaad musharaxii hela aqlabiyad 3/2 tirada guud ee xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ah 219 xubnood ayaa ku guulaysanaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wareegga koowaad haddii la codeeyo musharaxa hela 2/3 ama 2 meelood 3 meel marka loo dhiga 2 meelood ayaa ku guulaysanaya haddii wareegga koowaad musharax uu ku guulaysan waayo aqlabiyadda 3 meelood 2 wadarta guud ee labada aqal waxaa 4 musharax ee wareeggii koowaad helay codadka ugu badan loo gudbinayaa wareegga labaad codad isla eg oo barbardhaca waxay ka wada qaybgalayaan wareegga labaad taasoo tirada tirtamayaashu ay kordhayso sida uu qabo qodobka 89aad farqadiisa 5aad xarafka b ee dastuurka kumeel gaarka ah iyo cutubka 3aad ee qodobka 5aad ee faqradiisa 6 xarafka ba ee xeerasaadka tirada codadka ugu badan wareegga koowaad waxaana jagada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku guulaysanaya musharaxii 3 meelood 2 tirada guud xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka sida ku cad qodobka 89aad faqradda 5aad xarafka ee dastuurka kumeel gaarka ah iyo 3aad qodobka 5aad faqradda 6 ee xarafka c ee xeerarka kumeel gaarka ah kuna saabsan doorashada wareegga saddexaad waxaa ka qayb galaya labada musharax ee hela codadka ugu badan wareeg haddii uu jiro musharax saddexaad oo helay tiro la siman ka mida labada musharax ee isku soo haray wuxuu isaguna ama iyaduna ay ka qaybalaysaa wareegga saddexaad waxaa ku guulaysanaya musharax hela cod haldheeri ah tirada xubnaha ee codaysay labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya